haddii aad maqli jirtay hebel lafiisa ayuu u baqay iyo macallinkii fagaare hadda xaaladaasi waxay haysataa ra'iisul wasaaraha nidaamka Israel Benjamin Netanyahu odaga waxa uu taagan yahay caawa waxaan dareemayaa dalalkii wadamada islaamku in ay ugu riixayaan in aan gali doono dagaal nuclear ah warbaahinta Israel ayaa afka furatay waxay leeyihiin waniyahu muddo dab ku ciyaaraysay isla markaana aynu eegayna waxaad samaynayso laakiin hadda waxaad wadaa dhabihayna ku baabi'i lahayn maxaa soo kordhay maxaa looga baqayaa heshiiskii Maka war weyn ayaan caawa idin hayaa oo arrimahan si gaar ah u taaban doona ikhtiyaaray wadamadii carabta ee ku jira wadanka Mareykanka fagaarta ayuu mid kasta gadiyay waxaana uu isku hoosturay dawladda Pakistan uu leeyahay Pakistan ay adiga nuclear ku gaashaaman Mareykanka waxa uu muuqanayaa inaan waxba la qaban karin laakiin hadda waxa la joogaa xilligii aynu hubkaada ku badbaadi lahayn dalka Kuwait oo kamid ahaa wadamadii sida adag loo garaacay xilligii dagaalkii bariga dhexe uu socday maanta heshiis difaac ayuu la saxiixday wadankaasi Pakistan si loo fasirayaa heshiiskaasi isna waynu eegi doonaa khiyaarta ay nala socotay qaar kamida wadamo ku yaala Yurub kana tirsan gaashaanbuurta NATO ayaa iska riixay fuusta dhinaca Mareykanka ka timi iyo sirdoonkooda hogaamiye hore ee dalka Estonia waxa uu leeyahay Trump iyo dawladda Mareykanka iyada ayaa xiisad haysata waxba yaanay oran wadamo ka tirsan NATO ayaynu ka badbaadinaynaa wadanka Ruushka sidaas darteed ayuu John Radcliffe ninka la yiraahdo ee agaasimaha ka hay'adda sirdoonka uu tagay Moscow warbaan idin hayaa buu leeyahay ninkaasi daboolka ayuuna ka qaaday inana waa kula wadaagi doonaa laakiin waxaynu sidoo kale eegi doonaa laba qodob oo laga helay sababta agaasimaha sirdoonka Mareykanka uu u gaaray Moscow maxaa laga qariyay maxay saacawa warbaahintu la fagurayaan waynu qaaba dhigi doonaa arintaasna dhinaca aqalka cad war culus ayuu ka soo saaray xaaladda wadanka Iran talow xageebay ku dambeeyeen wada hadalladii Mareykanka maxay dawladda Washington haatan quusu taagan tahay qodobada aynu caawa isla jaxjaxi doonaa iyo dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo gobolka bariga dhexe ay khiyaaray waa 27 bisha Agasta sanadka 2026 fiid wanaagsan ayaan idin leenahay waa 22 ee maanta haddii aad inala socotaan khiyaaray aragtida qaybta faallada iyo barnaamijka waxa uu yahay maxaa Pakistan loogu wada cararayaa maxaa sida wadankaasi oo kale hore loogu dhiiran waayay oo nuclear loo samaysan waayay mise waxa la aaminsan yahay wali Mareykanka cid badan oo dagaalada bariga dhexe ah inuu ka badbaadin karo carabta caawa xaalku waa abootay furo bariga dhexe waa bariga dhexe dawlado fara badanna waxay ka baqayaan isbeddello waaweyn oo caalamka ka jira aragtidaada qaybta hoose ayaad ku cabiri kartaa Israel caawa xaalkeedu waxa uu taagan yahay lafahaada caynso warbaahinta Macaarif ayaa daboolka ka qaaday walwalka weyn ee nidaamkaasi haysta ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu oo dhabanka iyo gacanta ay isku dhagan yihiin isla markaana ay u shidan tahay dhabanka iyo gacmuhu ma isku kaydageen haddaba heshiiskii Maka ee dawladda Pakistan ee halkaasi ka soo muuqatay Islamabad waxa uu yeelay qiimo aad u ballaaran waliba lacag ay halkan ka sameyn kartaa Israa'iilna waxay u aragtaa godkeedii biyeena ugu soo galeen haddii sheekada Turkiga iyo Sacuudiga ay ahayd iyo dalal Iran lamida oo la leeyahay waxbay sameysteen kuwii waxa haysta ayaaba haatan laga baqayaa haddaba maxaa jira oo la qariyay oo wargeyska Macaarif uu caawa banaanka keenay wargeyska caanka ah ee Macaarif ee Israa'iil ayaa su'aal ka keenay in Israa'iil lagu jeedi karo dagaal nuclear ah iyadoo ay sii kordhayaan xiisadaha u dhaxeeya Israa'iil iyo Turkiga ee gudaha Syria gaar ahaan kadib markii Sacuudiga Turkiga iyo Pakistan ay kala socdeen heshiiska difaaca wadajirka ah ee loo bixiyay heshiiska Maka ama ittifaaqiyatul Maka warbixinta ayaa soo baxday kadib arrin khamiistii warbixin oo khamiistii daabacay warbaahinta Turkiga ee afka Ingiriiska wax ku qora Turkey Today la yiraahdo taas oo sheegtay
in loolanka sii xoogaysanaya ee Israel iyo Turkiga uu su'aal ka keenayo mustaqbalka heshiiska cusub iyo waliba in heshiiska si degdeg ah imtixaankaasi ugu dhici kara baa la yidhi haddii isku horimaad uu dhex mara Ankara iyo Tel Aviv isla markaana uu ka qarxa dagaalkaasi gudaha waddanka Syria. heshiiska waxaa xilligan lagu saxeexay baa la yidhi iyadoo bariga dhexe uu wajahaya xiisad military oo joogta ah oo ay ku jiraan weeraro xiriir la leh baa la yidhi dagaalka Iran iyo Mareykanka, qataraha ka jira marinbiyoodka Hormuz iyo kan Baabul Mandab iyo walaaca laga qaba amniga maraakiibta halkaasi gooshaysa ee shidaalka kala gudbinaya. haddaba heshiiska ma kama noqon karaa tijaabadiisii ugu horeysay? wargeyska Turkey Today ayaa 18 Agosto sheegay in Israel ay duqeyn ka fulisay saldhigga diyaaradaha Abu Dahuur ee waqooyi galbeed, taas oo muujinaya baa la yidhi sidii wadamadan ay durbadiiba u muujin lahaayeen in jawaab degdeg ah ay ka bixiyaan xiisadda sii xumaanaysa ee gobolka bariga dhexe oo durbaba cirka isku shareertay. Pakistan ma dagaal ay la geli doontaa Israel? halkan weeye meesha Netanyahu uu leeyahay dhabanka iyo gamcuhu ma isku kaydhageen. sida uu qoray baa la yidhi aqoonyahanka Saciid Qaan oo horey u ahaa ku-xigeenka taliyaha ciidanka cirka ee Pakistan isla markaana soo noqday safiirka hore ee Pakistan ee u fadhiya dalka Syria, ayaa sheegay in dagaal toos ah u dhaxeeya Turkiga iyo Israel aanu ahayn xaaladda ugu badan ee hadda la filayo. hase yeeshee waxa uu tilmaamay in labada dal ay sii wadi doonaan loolanka ku saabsan saamaynta ay ku leeyihiin gudaha waddanka Syria. Danjira Khan waxa uu sheegay in Israel ay walaac ka qabta baa la yidhi dadaalada Turkiga ee lagu doonayo in dib loogu dhiso awoodda difaaca Syria xilli waddankaasi Suuriya uu wali ku maqan yihiin baa la yidhi ama ay booskiisii maran yihiin ciidamadii qaranka ee waddankaasi. waxa uu sidoo kale xusay in Turkiga iyo Israel aysan wadaagin xuduud toos ah, balse Israel ay Golan Heights kala wareegtay Syria sanadkii 1967 tan iyo markii uu bilaabmay dagaalkii Iran. waxa uu sheegay in Israel ay si weyn u soo dhaweysay arrinta Dimashq ay u arkaysay inay qatar weyn ku tahay. dhinaca kale Haydar Maxamed Hussein oo la taliya dhinaca warshadaha difaaca ah ayaa sheegay in Pakistan aysan u arkin dagaal buuxo oo Turkiga iyo waliba Israel dhexmari kara inuu yahay xaaladda ugu weyn ee la filayo, sida aqoonyahanku caawa isku raaceen. qatar ka iman karaysa dagaal ballaaran waa tan aan la iska indhatiri karin haddii gobolka bariga dhexe xaalkiisa uu faraha la gala dagaalkaasi. qabiir amni iyo maareeyaha qataraha oo la yidhaahdo Junayd Jacfad ayaa sheegay in isagu uu meesha ka saarayo suurtagalnimada dagaal buuxa oo u dhaxeeya Turkiga iyo Israel, balse waxa uu qirtay in ay jirto qatar dhab ah oo iska horimaad xadidana oo dhici karaya. Javad waxa uu sheegay in Ankara iyo Tel Aviv ay leeyihiin dana isdhexgalaya oo labada dhinac ku riixaya in ay ka fogaadaan dagaalka. xubinnimada Turkiga ee waddankaasi isbahaysiga NATO iyo xiriirka xooggan uu la leeyahay Washington ayaa u muuqanaya baa la yidhi in ay wax badan dabrayaan sida ay hadda wax u dhigayaan. haddaba maxay tahay heshiiska dhab ahaantii ku qasbaya Pakistan? muxuu yahay heshiiskaasi? muxuuse Pakistan ku qasbi doonaa mustaqbalka? dhinaca siyaasadda heshiiska difaaca wadajirka waxaa lagu qoray luuqad dabacsan oo si kaca aan faahfaahin badan u bixinaysa, taasoo dhinacyada siinaya fursado ay diblomaasiyad ahaan u adeegsadaan. heshiiskan waxa u muuqanayaa baa la yidhi Pakistan in ay tahay isha keliya ay doonayaan dowladaha waaweyn inay isku difaacaan. si kale uma taqaanide ninkii Benjamin Netanyahu ahaa heshiiskii Maka waxaa la leeyahay wadnaha dhag leh oo qaar ka mid ah ayaaba sii huleelay marka uu maqlay Pakistan baa meeshii fadhiso oo xaalku waa adag yahay. waayahay qiyaarta ay nala socotay haddii aan eego wararka kale ee caawa xiisaha gaar kale abuuraya waxaa ka mid ah dalalkii Carabta ayaa markii ay arkeen waxa ku dhacaya waxa ay durbadiiba isku hoos tuureen waddanka Pakistan iyagoo ka doonaya difaac ballaaran. maanta dowladda Kuwait ayaa heshiis iskaashi military oo laba dhinac la gashay waddanka Pakistan.
muhiimad iyo actor weyn ayay noqonaysaa waddankaasi waa Pakistan uu noqonayaan iraahdee iyadoo xaalkaasi uu ka dhigan yahay dalkaasi in uu hadda yahay midka kaliya ee go'aamada waaweyn gaaraya. Pakistan graafkeeda ciidamada ayaa kor u kacay iyo keeda siyaasadaba marka la fiiriyo jihada gobolka bariga dhexe iyo dalalka qaniga ah. dalalka Kuwait iyo Pakistan ayaa khamiistii kala socday heshiis ku saabsan difaaca iyo iskaashiga wadajirka kaasoo lagu xoojinayo isku dawada ciidamada labada dal, isweydaarsiga khibradaha iyo sare u qaadista diyaargarowga isdhexgalka ciidamada qalabka sida ee labadaasi qaran. sida lagu sheegay war ka soo baxay ciidanka Kuwait, heshiiska ayaa lagu saxay magaalada Islamabad inta uu halkaasi booqashada ku joogay wasiirka difaaca waddankaasi Sheikh Abdullah Ali Abdullah Al-Salim Al-Sabah iyo waliba isagoo la kulmay wasiirkiisa dhinaca Pakistan Khawaja Mohammad Asif. waxaana labada dhinac mas'uul ay ka wada hadleen xiriirka. haddaba maxaa ku jira heshiiskan? heshiiskan waxaa ku jira ilaa iyo 7 qodob sida ka muuqanaysa: tababarka iyo waxbarashada militariga, iskaashiga ciidamada qalabka sida, arrimaha saadka iyo taageerada farsamada, isweydaarsiga saraakiisha khubarada iyo farsamayaqaanada, iskaashiga dhinaca sayniska iyo teknolojiyada, sirdoonka militariga, nidaamyada macluumaadka isgaarsiinta elektrooniga, warshadaha hubka iyo qalabka militariga, warbaahinta iyo wacyigelinta militariga, isweydaarsiga cayaaraha dhaqanka iyo howlaha bulshada oo dhammaantood ah meelaha laga jilaabto ee dhinaca sirdoonka. Kuwait ayaa bishii Luulyo 2026 soo saartay xeer ogolaanaya heshiiska difaaca ay la leedahay Pakistan. heshiiskan cusub ayaa xaqiijinaya xiriirka amni ee labada dawladood, gaar ahaan dhinacyada tababarka ciidamada sirdoonka, teknolojiyadda iyo waliba dhinaca warshadaha difaaca. Pakistan waxay soo xoojinaysaa awoodeeda militariga ee gobolkaasi, waxaana ay muujinaysaa xilligan in ay leedahay saameyn weyn marka la fiiriyo sida dawladihii Carabta ay mid walbaba isugu hoostuurayso. xooggaada ama waa lagu xooleystaa ama cadowga ayaa lisaga xajiyaa. waa halku dhiga rasmiga ah ee dawladda Pakistan ay ku howlgalayso marka la fiiriyo sida ay iminka wax u socdaan. haddii aan dhinaca bariga dhexe xoogaa ka yara fogeeyo oo aan ku geeyo dhinaca Ruushka iyo Mareykanka, warbaahinta adduunku waxa ay si weyn u hadalhayaan wixii dhexmaray John Radcliffe oo ah ninka agaasimaha ka ah hay'adda sirdoonka dhexe ee Mareykanka iyo dhigiisa waddanka Ruushka, iyadoo durbadiiba ay bilaabeen 2 fariin oo waaweyn oo la soo warinaya caawa kulamadaasi in ay ka dhasheen, iyadoo warbaahinta qaar ay bilaabeenba in ay dabagalaan waxyaabaha ugu waaweyn ee hadda bannaanka keenaya in dhinacyada ay ka wada hadlaan. agaasimaha hay'adda sirdoonka dhexe ee Mareykanka John Radcliffe ayaa toddobaadkan si aan hore loo shaacin ugu safray Moscow, sida Ruushka uu u gudbiyay digniino ku saabsan in uusan weerar ku qaadin dhulka dalalka xubnaha ka NATO, sida ay sheegeen 2 qof oo xog ogaal u ahaa arrintan oo warbaahinta Mareykanka la hadlay. sida wararku ay sheegayaan, Radcliffe ayaa waxa uu booqashadiisa sidoo kale uga faa'iideystay in Moscow uu ku cadaadiyo joojinta taageerada military iyo dhaqaale ee Iran ay siiso, xilli madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu isku dayay cadaadis weyn oo dhaqaale in ay waddankaasi la saaro waa Iran. maxaa laga wadaa digniinta Ruushka? waa su'aasha ugu weyn ee caawa warbaahintu ay daboolka ka qaadeen. saraakiisha Mareykanka iyo Yurub ayaa sii kordhinaya walaaca laga qabo in madaxweyne Vladimir Putin uu isku dayo in uu tijaabiyo midnimada iyo go'aanka NATO, isagoo qaadi karaya tallaabo military oo xadidan oo ka dhana dalalka ku dhow Ruushka. waxaa sidoo kale jira walaac sii xoogaysanaya oo dagaalka Ukraine ah. markii ugu dambeysay agaasimo CIA oo Moscow booqda waxay ahayd sanadkii 2021 xilligii maamulka madaxweyne Joe Biden. xilligaasi uu booqdo baa la yidhi William Panis oo madaxweyne Putin uga digay in uu duulaan ku qaado dalka Ukraine. 3 bil kadibna Ruushka dagaal furan ayuu ku qaaday waddankaasi Ukraine, taasoo ka dhignayd in si weyn loo tijaabiyo xulufada reer galbeedka.
Trump booqashadiisu waxay ahayd mid caadi ah. CNN-ka ayaa la xiriiray CIA-da si ay wax uga ogaato booqashada, iyadoo wargeyska The Wall Street Journal ahayd warbaahintii ugu horeysay oo sheegay in Ratcliffe uu Moscow uga digay Ruushka inuu weerar ku qaado NATO. madaxweyne Donald Trump ayaa toddobaadkan sheegay markii wax laga weydiiyay walaaca laga qabo in Ruushka uu weerar NATO sheegay in arrintaasi aanay ahayn ujeedada booqashada agaasimaha. Trump ayaa waraysi Arbacadii siiyay wariye caan ah waxa uu ku sheegay in Ratcliffe oo Moscow u tagay booqasho waag mid caadi ah oo wax badan muuqan, laakiin waxa muuqanaya in waxa ugu weyn ee hadda banaanka yaala yahay baa la yiri arrinta wadanka Iran. waayahay waxa ay Mareykanka qariyaan xogtaasiba hadda waa la haystaa oo farqaha ayaa la iska lulanayaa. marka la fiiriyo hadalka ka soo baxaya dalalka Baltiga ee ku dhow dalka Ruushka sida weyn arrintaasi ay u taabanayso ayaa waxa hadlay madaxweynihii hore ee Estonia, waxana uu leeyahay Mareykanka isaga oo baalfaysa la baxsanaya oo dhibaatooyin ballaaran ay haystaan mooyaane ma jiraan wax annaga la inoo boqo. madaxweynihii hore ee dalka Estonia Thomas Hendrik Elfis ayaa shaki weyn galiyay wararka sheegaya in agaasimaha hay'adda sirdoonka dhexe ee Mareykanka Ratcliffe uu Moscow ugu tagay baa la yiri in Ruushka uu uga digo in uu weerar ku qaado dalalka Baltiga ama xubnaha ka tirsan NATO. ninkani waxa uu leeyahay inuu aaminsan yahay in Iran ay tahay qodobka ugu weyn oo hadda Mareykanka ku haya caqabad weyn, sidaas darteed waxa uu iibinayaa Trump iyo Washington ba in arrimahaasi ay hadda xal u raadinayaan si ay uga badbaadaan mustaqbalka dhaleecayn u timaada. waxa uu leeyahay waa maxay dhibaatada dhabta ah ee hadda haysata Mareykanka? dhibaatada dhabta ah waa Iran ee xaqiiqada ah in Ruushka uu Iran siinayo macluumaad ku saabsan bartilmaameedyada wadankaasi. sidaas darteed CIA-du waxay doonaysaa inay u sheegto arrintaasi in aysan aqbali karayn, laakiin Mareykanka xogta dhabta ah banaanka ma keenin. haddii ujeedada ay ahayd in Ruushka uu si cad u sheego in uusan wax tallaabo ka qaadin dalalka Baltiga sida la sheegay, waxaan halkan ka arki karayna buu yiri nooc ka mid ah dhaqdhaqaaqyo ama isbeddello weyn. ayuu ninkan si weyn banaanka ugu dhigay doodiisa, taas oo hadda ka dhigan in dowladda Mareykanka ay wajahayso mid ka mid ah saameynihii ugu cuslaa ee ku saabsanaa arrimaha dagaalkan. aqalka cad ayaa war weyn ka soo saaray Iran, waxana ay leeyihiin ma jiri doonaan wax wada hadala oo lala galaya wadankaasi. waxana ay ka dhigan tahay in ay muujinayso Washington in cadaadiska lagu hayo Tehran ay si laba jibaarto, taasoo ka dhigan Washington inay doonayso inay salka ugu dhufato dowladda Iran. mas-uul Mareykan ayaa Al Jazeera u sheegay in wax heshiisa oo Iran iyo Oman ay gaareen aysan muhiim u lahayn Washington, isagoo ku eedeeyay ama cadeeyay baa la yiri in xilligan aysan jirin wax wada xaajood oo u dhaxeeya Mareykanka iyo Iran, sidoo kalena aan la qorsheynin kulan kale ama wada hadal cusub oo banaanka iman doona. mas-uulkan ayaa sheegay in marinka Hormuz uu hadda yahay mid furan kadib markii la sheegay in minooyinkii badda laga saaray, hase yeeshee waxa uu xusay in go'doominta badda ee lagu soo rogay Iran ay weli si buuxda u socdaan. warbixinta waxay sidoo kale daabacday baa la yiri warbaahinta in arrintaasi la soo tabayay mowqifkaasi Mareykanka inuu yahay mid culus. cadaadiska dhaqaalaha ayuu aqalka cad sidoo kale caawa ka faallooday, waxana uu mas-uulkan uu sheegay baa la yiri in Mareykanka uu sii wadayo waxa uu ku tilmaamay godoominta dhaqaale, taas oo loogu talagalay in lagu jiro ilaha dhaqaalaha ee weli quudaya dowladda Iran. arrintani waxay muujinaysaa in Washington inkastoo Hormuz ay hadda furan tahay baa la yiri aysan weli ka tanaasulin cadaadiska military iyo dhaqaale ee saaran dalka Iran. mowqifkan ayaa sidoo kale waafaqsan hadalla aan horay u soo baxay dhinaca Mareykanka oo muujinaya in Trump uusan doonayn in wada xaajo dowlad galo dalkaasi la yiraahdo Iran. waayahay waa la haystaa waana la isku dhagan yahay. waxaad muuqanaya Mareykanka inay leeyihiin Ruushow dagaalka Iran waan ku dhig baxnay, saaxiibo naga wareeji,
informationada waddankana siinaysa jar Iiraan looma dul qaadan karo meeshii ugu dambaysa ayaan hadda xaniinyaha ku haynaayo fadlan hay naga fujin laakiin Moscow waxay yaa dabaal oo duurka loo diray taagantahay sheekadooda oo dadaal badan ay ku bixinaysaa sida uu jiri lahayd haddaba Putin ma aqbali doona hadalka CIA ay meesha geeyeen maadaama Yurub ay yiraahdeen annaga waxa la sheegay waxba kama jiraan oo nama tijaabinaya ninkan maxay yihiin qorshaha hadda soo baxaya